Audio Jungle. Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردada qiimaha iyo sharafta la soo dhawaada. Waxaan ku guda jirnaa course-kii General Accounting. casharkii labaad ayaan qaadanaynaa. Waan rajeynayaa casharkii koowaad inaad soo daawateen soona fahanteen. casharka labaad waxaan ku qaadanaynaa Learning Objective 3. wuxuuna noqonayaa chapterka koowaad aan weli ku guda jirnaa. State waxaa sheegtaa accounting equation isla egta accountingka, and divine waxaadna qeexdaa its component waxyaabaha ay ka kooban tahay. halka ugu muhiimsan accountingka waa basekiisa waa halkan. si fiican ila soco. Asset equal liability plus owners equity. Asset waxaa la yiraahdaa hantida shirkadu ay leedahay ee maguurtada iyo guurtada labadaba isku ah. sidoo kale liability waxaa la dhahaa deymaha shirkada lagu leeyahay. owners equity-na waxaa la dhahaa ra'sul maalka qofka milkiilaha ah shirkada milkiilaheeda ra'sul maalka uu leeyahay. Asset-ka marka mar walba waxaa la rabaa inuu la ekaado liability plus owners equity. sidoo la ekaanaya asset-ka markiisa horeba hantida shirkada waxay ka timid deyn dad laga soo qaaday oo liability ah iyo milkiilaha hantidiisa oo lacagta uu asaga goonida u lahaa. labadaas oo la isku daray ayay shirkada hantideedu ay ka kooban tahay. marka mar walba waxaa la rabaa in asset-kaagu ama hantida shirkada uu la eg yahay deymaha lagu leeyahay iyo milkiilaha hantidiisa ama owners equity. basic accounting equation marka basic accounting equation waxaa la dhahaa saddexdan. asset equal liability plus owners equity la dhahaa. basic accounting equation ka provide wuxuu bixiyaa underlying framework waa nidaam for recording lagu diiwaan geliyo and summarize laguna soo koobo economic events. dhacdooyinka dhaqaale ayaa lagu soo koobaa laguna diiwaan geliyaa. asset-ka oo hantida shirkada ah climate by waxaa sheegan kara eeda creditor qofka deynta bixiyay ama bangi ha aado ama shakhsi aade deyn qofka deynta leh oo liability-gan ugu leh iyo ownerka iyo ownerska dadka iska leh company-ga waa owners equity-ga ayaa labadaas ayaa sheegan kara hantida shirkada. if a business is liquidated haddii businesska ama ganacsiga lagu kala tago claims sheegashada of creditors ee dadka deymaha shirkada ku leh must be paid waa in marka hore la bixiyo before ka hor ownership claim. sheegashada qofka ownerka ka hor waa in la bixiyaa deymaha lagu leeyahay shirkada. kadib wixii soo baxa ayuu yeelanayaa qofka ownerka. basic accounting equation ka weli ku guda jirnaa. asset-ka maxaa la yiraahdaa waa resource waa dakhliga business owners ee shirkadu ay leedahay. resources-ka ay shirkadu leedahay ayaa la yiraahdaa asset-keeda. provide future service or benefit sidoo kale waa halka laga helayo faa'iidada iyo adeega shirkadaha ay shirkadu ay qabanayso faa'iidada halkay u galayso waxyaabaha faa'iido la helayo shirkada waa asset-keeda ayaa laga sii faa'iidaya. asset-ka shirkada ayaa faa'iido laga sii helaya. akoonada la isticmaalo ee asset-ka ama shirkada hantideeda akoonada lagu shubo oo loo isticmaalo waxaa la yiraahdaa waxaa kamid ah cash oo lagu shubo wixii lacag cadaan ah, supplies alaabaha yararka ee xafiiska sida qalimaanta warqadaha waxyaabahaas la yiraahdaa yararka alaabaha yararka. equipment qalabka waaweyn sida kombiyuutarada baabuurta iyo wixii lamid ah. account receivable waa deynta shirkadu ay ku leedahay macaamiisheeda oo hal sano gudaheeda. inventory-na waa alaabta shirkada u taala inventory-geeda badeecadeeda u taala weeyaan. prepaid insurance waa caymis shirkadu ay hormarisay oo asset-keeda ka mid ah. sanad caymis la hormariyay bishaas koowaad haddii marka ay dhamaato expense u baxaysa bisha koowaad. inta kale waxay noqonaysaa asset shirkadu ay leedahay oo prepaid insurance ah oo la hormariyay. waxaa kaloo ku jira prepaid rent kirada guriga ee la hormariyo waxaa ayadana waxay ka mid tahay asset-ka. building dhismaha iyo land oo dhulka ah waxaas oo dhan asset-ka shirkada ay ka mid yihiin. intaas oo dhan marka waxaan kusoo jirnaa hadda tangible waxyaabaha la taaban karo tangible asset-ka. copyright-ka ayaa ka mid ah oo ah calaamadda shirkada xuquuqdeeda iyo patentiga oo shatiga shirkada.
waxyaabaha ayagana intangible-ka aan la taaban karin ee assetka shirkadana ka mid ah. Liabilities aan tagayna haddana. Liabilities waa maxay? waa deymaha shirkadda lagu leeyahay. waa claims sheegashada against asset ee hantida lagu sheeganayo. waa deynta shirkadda ay lagu sheeganayo. Debts and obligations waa deymaha shirkadda ay lagu leeyahay. Creditors marka dadka deymaha ku leh waa part waa qayb to whom kuwaasoo money is owed lacag ay ku sheeganayaan ay ku leeyihiin assetka. akoonnada liability-ga loo isticmaalo waxaa ka mid ah account payable oo ah deyn shirkadda lagu leeyahay hal sano gudaheedna ah. note payable waa deyn shirkadda lagu leeyahay oo sanado badan ah. salary and wage payable mushaarka shaqaalaha oo deyn ah shirkadda lagu leeyahay. unearned service revenue waa revenue lacagtiisa loo hormariyey ama dakhli lacagtiisa loo hormariyey laakiin weli aysan shirkaddu qabanin. unearned rent revenue waa kiro loo hormariyey laakiin weli aan u bislaanin waa shirkadda guriyii leedahay kiradii ayaa loo hormariyey welina lacagtaasi uma bislaanin oo markii bilshii loogu talagal ay dhammaato ayay revenue-ga shirkadda ama dakhliga shirkadda soo geli kartaa. interest payable waa dulsaarka shirkadda faa'iidada markii ay deymo soo qaadato shirkadda waxyaabaha laga faa'iidayo la dul saarayo interest payable waaye waa shirkadda deyn lagu leeyahay noqonayaan. income tax payable ayadana waa canshuurta dowladda ay ka qaadayso oo ayadana deyn ku noqoto lagu leeyahay. owners equity waa qaybta aan niri ra'sulmaalka shirkadda oo dadka ra'sulmaalka dadka ownerska iska leh ayaa gelaya. marka ownership claim waxaa sheeganaya lahaanshaha total assetka dadka sheeganaya ayaa waxay noqonaya owners equity. waxa lagu sheeganayo shirkadda oo dhan assetkeeda marka laga soo reebay liabilitieska waxay noqonayaan owners equity-ga noqonayaan. referred to as waxaana loo yaqaan residual equity waa la yiraahdaa. equity ayada sidoo kale la dhihi karaa magac ahaan. maxay u qaybsantaa marka owners equity? afartan ayay u qaybsantaa. investment iyo revenue. laba soo ma haysid. investment waa maalgelinta by owner uu sameeyay qofka milkiilaha iyo revenue dakhliga labadaasi waxay siyaadeen owners equity-ga. waa labadee waa investmentiga iyo revenue-ga labadaasi waxay siyaadeen owners equity-ga. waa laba sub account hoos timaada. drawing iyo expense-gana waxay yareeyaan owners equity-ga. sidee u yareeyaan? drawing waa milkiilaha lacagta uu la baxo oo uu qaato shirkadda ka qaato. expense-gana waa qarashaadka shirkaddu ay gasho. labadaasi waa minus waxay yareeyaan owners equity-ga. si kooban marka maxaan dhihi karnaa owners equity ama equity-ga equity kaliya haddaad tirahdana waa la mid. equity-gu wuxuu ka kooban yahay afar. investment iyo revenue oo balaas ah waxay badiyaan equity-ga. drawing-ka iyo expense-ga waa qarashaadka iyo shirkadda malkiiluhu wuxuu ka qaatee waa minus ayagana waxay yareynayaan owners equity-ga. afartan markay hoos imaadaan owners equity-ga. intaas si fiican u fahan. owners equity-ga asagoo waxaan tegaynaa basic accounting equation. basic accounting equation waxaan niri asset liability plus owners equity. ayadoo expanded equation ayadoo la fidiyey. assetka waa kan waa sidiisii liability-gana waa sidiisii. owners equity-ga afartan hadda idiin sheegay ayaa loo qaybiyey oo maxay kala ahaayeen? owners capital oo investment-iga u taagan. owners drawing waa minus soo ma jeeda ayadana. revenue waa dakhliga shirkadda soo galaya waa plus. expense waa qarashaadka shirkadda ka baxayay. marka midka labadan minuska mid walba midka kale ka go'aya. owners capitalka oo ah investment-iga ownerka uu sameeyey waxaa ka go'aya lacagta uu dib ula baxo oo qaatay. revenue-ga oo dakhliga shirkadda ama faa'iida ay samaysana waxaa ka go'aya expense-ga qarashkii lagu galay. afartaasina waxay hoos imaadaan owners equity-ga ama equity-ga. laba waa plus labana waa minus. labada pluska owners equity-ga badiyaan labada minuskaahina waxay yareeyaan owners equity-ga. increase marka si koobanaan halkaas ugu sheegnay intana sharaxaadii ku qoran. increases in owners equity. owners equity-gu waa siyaadaa. owners equity waa kan way siyaadaysaa. waxaana siyaaday investment by owner maalgelinta qofka milkiilaha uu sameeyo iyo revenue-ga dakhliga. investment-igu muxuu noqonayaa? waa assets waa hantida that the owner taasoo milkiilaha puts into the business uu geliyo ganacsiga. revenue-gana waa maxay? waa results from business activity
waa natiijada ka timaada business activity ama howlaha ganacsiga. Entered into force taasoo entered into for the purpose taasoo loo galo ujeed for earning income faa'iido in la helo. Common source-ga meelaha ilaha ugu badan oo revenue-ga laga helo maxaa ka mid ah saleska in wax la iibiyo, feeska oo lacagaha jaamacadaha iyo iskuulada iyo baasaboorada iyo dadka marka laga qaado fees la dhahaa, iyo service-ka adeegyada shirkaduhu ay qabtaan. Commission-ka waa maxay iyadana commission-ka ama dalacaadda. Interest-ga dulsaarka ayadana review ay noqonaysaa. Dividend-ga faa'iidada marka la qaybsanayo. Royalty ayadana maxay noqonaysaa waa royalty-ga iyo rent-ga kirada iyo waxyaabaha kale ee si gooniya lagu helo ayadana. Sales discount waa maxay? Sales discount-gan wuxuu minus ku yahay sales revenue. Sales discount-gan waa discount-ka ama qiimo dhimista loo sameeyo qofka wax iibsanaya ama loo sameeyo. Sales return and allowance waa alaabta lagu celiyo sellerka. Alaab markii laga soo iibiyo alaabta lagu celiyo. Labadani waxay contract ku yihiin oo minus ay ku yihiin oo yareynayaan saleska. Decrease owner's equity. Owner's equity waxyaabaha yareeya labaan ku sheegnay oo drawing iyo expense. Drawing maxaa la dhahaa? An owner qofka milkiilaha ahaa may withdraw waxaa laga yaabaa inuu qaato cash or other asset ama hanti kale inuu qaato for personal use isagoo u isticmaalaya ujeedadiisa gaarka u isticmaali karaa. Expense waa qarashaadka. At the costs waa costiga ama qiimaha of asset ee hantida consumed la isticmaalay. Hantida la isticmaalayo ama la sii iibinayo ama service adeeg ha noqotee qarashka lagu gelayo waaye. Taasoo loo isticmaalayo process hanaanka of earning revenue ee dakhli in la helo loo isticmaalayo waxaa la yiraahdaa expense. Common expense waa maxay? Qarashaadka guud ee expense-ga qarashaadka waa salaries waa mushaaraadka and wage expense. Meelaha ugu badan oo expense-ga uu ku baxa waxay tahay salary and wage expense qarashaadka shaqaalaha, rent expense kirada qarashaad ku baxa, utility expense waa korontada iyo biyaha qarashaad ku baxa, tax expense canshuurta qarash ku baxa, advertising expense xayisiinta qarashka ku baxa, cost of goods sold alaabta la soo iibiyay qiimaha ay ku fadhido ayadana waa qarash. Interest payable waa maxay ayadana waa dulsaarka ama ribada qarashka ku baxa. Insurance expense caymiska shirkadaha caymiska ah qarashaad ku baxa. Si kooban marka effect saameynta of accounting equation-ka waxay noqonaysaa asset-ka labo ahaa receive inuu bato ama yaraado. Receive marka waa helitaanka, waa increase waa badasho. Markii asset-ku uu soo bato positive ayuu noqonayaa. Paid markii asset-ku uu la bixiyana decrease wuu yaraanayo oo negative uu noqonayaa. Asset-ka marka laba qayb waaye. Haddii hanti hor la ay soo gashto waa positive waa plus. Haddii hanti ii taalay ay baxdana oo ama lacag baxdo ama account receivable dayn aan lahaa ay yaraato oo naloo keeno ama qalab uu naga baxo waa negative asagana. Marka asset-ku waa labo waa plus iyo minus. Hanti hor la markay ku soo gasho waa plus, hanti markay ka baxdana waa negative waa minus. Liability-ga waa deymaha shirkadda lagu leeyahay. Take in markii dayn hor la aan qaadano waa increase waa positive waa badanaysa waana positive. Take out markii daynna lagu lahaa aan iska bixinana waa decrease waa negative waa naga yaraanaysa daynta. Labadaas ayadana positive iyo negative waa fahantaan filaya. Owner's equity afar uu ka koobnaa. Si kooban laba plus ay ahayd labana minus. Labada plus-ka waa investment au increase marka waxay badiyaan owner's equity-ga waana positive. Revenue-gana waa increase wuxuu badiyaa asagana oo positive uu ka dhigaa owner's equity-ga. Owner's equity waa maxay? Drawing asagana. Drawing-ka ku jira oo shirkadda wixii uu kala baxay qofka owner-ka waa decrease waa negative asagana. Decrease wuuna yareynayaa negative-na waa. Meeshan plus-ka negative laga rabaa. Cafwan plus-kan waa qalad negative laga rabaa. Negative ayaa qoran laakiin calaamadii aan positive ka dhigno marka negative ayaa meeshan laga rabaa. Expense oo qarashaadka decrease ayadana way yaraanaysaa waxay yareysaa owner's equity-ga waa negative oo waxay yareysaa owner's equity-ga.
intaas ayaan ku simeynaa xogaa casharka wuu dheeraanaya marka casharkan saddexaad halkaas ayaan kasii bilaabi doonaa haddii alla idmo